kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena barbaarta iyo beeraha oo aan markasta kusoo qaadano ciwaano muhiim ah oo la xiriira wax soo saarka iyo horumarinta beeraha Soomaaliyeed. Waxaa maanta martina ah Ustaad Cabdiwahaab Cabdulaahi Cumar oo ah waxbare oo ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha gobolka Banaadir. Ustaad Cabdiwahaab wuxuu ku takhasusay cilmiga qalabaynta beeraha oo loo yaqaano agricultural machinery ama farm machinery iyo technological engineering. Ustaad Cabdiwahaab wuxuu shahaadada bachelorka iyo masterkaba ka qaatay jaamacadda Ontu Kuzmais ee ku taala dalka Turkiga. Ustaad Cabdiwahaab waxaa kugu soo dhaweynaynaa barbaartii beeraha. Kusoo dhawow. waa dhiwahay aad u mahadsantihiin barbaartii beeraha. anila balame barbaare biyo waa la hele ambaxne badarkii abuurne berihii maanta waxaa mawduuceena ku saabsan yahay mawduuc muhiim ah oo ku saabsan mashiimeynta beeraha. intaan guda gelin waxaan jeclaan lahaa in daawadayaasha aan u dulmarno mawduuceena wuxuu ku saabsanaa doono iyo waxay kala bixi karaan markay muuqaalkan dhamaystaan. dhiwahay aad ugu mahadcelinayaa bahda barbaartii beeraha. mawduucayna maanta mashiimeynta beeraha ayuu ka hadlayaa. waxa ay dadka Soomaaliyeed ama beeraha xiiseeya ama beeraha waxay ka fahmi doonaan markuu noo dhamaado barnaamijka ay dhageystaan in maxaa weeyaan mashiimeynta beeraha muhiimad waxa uu yahay, muhiimadda uu leeyahay beeraleyda uu leeyahay, sida beeraleyda yaryar loogu dabaqi karo ama looga faa'iideyn karo, caqabadaha beeraleyda Soomaaliyeed ay kala kulmaan ama qalabkii gadashadiisa iyo markii la eego maxaa weeyaan caqabadaha ay la kulmaan caqabadaha haysta ayaan barnaamij ku falaqayn doonaa doole. intaanan guda gelin mawduuca waxaan jeclaan lahaa in daawadayaasha iyo anigaba ay inoo sharaxdid maxaa loola jeedaa mashiimeynta beeraha iyo sababta ugu muhiim tahay beeraleyda Soomaaliyeed. mashiimeynta beeraha waxaa loola jeedaa adeegsiga qalabyada casriga ah in maxaa weeyaan laga gudbo oo qalabyadii hore laga gudbo qalabyadii hore qadiimiga ahaa ee ku xirnaa awoodda bini'aadanka iyo awoodda xayawaanaadka loona gudbo qalabyada casriga ah. qalabyadii hore ku xirnaa awoodda bini'aadanka sida yaambadii iyo qalabyada iyo kuwa xayawaanaadka u jiiday in laga gudbo loona gudbo qalabyo casri ah oo ku xiran awoodaha oo ama ku shaqeeya awoodaha casriga ah sida matoorada oo cagaftii iyo qalabyada kaloo la mid ah iyo kuwa korontada ku shaqeeya oo qalabyada qaboojiyaasha oo dalagyada kale markii lasoo guro kale lagu sii haayo si ay muddo badan usii jiraan iyo solarkii oo kale dabaysha iyo awoodahaas casriga ah qalabyada ku shaqeeya in loo gudbo ayaa waxaa la yidhahdaa marka oo qalabyadii hore qadiimiga laga gudbo ayaa mashiimeynta beeraha dhigana. muhiimadda uu leeyahay marka mashiimeynta beeraha ay u leeyihiin beeraleyda waxa weeyaan kow horta wuxuu hagaajiyaa ama uu koobaa ama yareeyaa waqtiga hawsha lagu qabanayay oo markii manualka lagu shaqeynayo ama bini'aadanka ay shaqeynayeen waxa ay waqti uga lumayay ama waqti badan ay ka qaadanaysa beerta inay ku diyaariyaan ama shaqadii beerta ay qabtaan. marka sidaa darteed mashiimadu waxay suurto gelinayaan shaqadii dheereed waqti dheereed qaadanaysay in lagu soo koobo waqti kooban oo maalmo shaqo qaadanaysay saacado gudahood lagu qabto. shaqadaas lasoo koobayo loolama jeedo marka in maxaa waaye shaqadii la kala jaray ama shaqadii haaf laga soo qabtay. shaqadii si dhammaystiran oo sidii manualka markay u shaqeynayo bini'aadanka iyo xayawaanka ay shaqada qabanayeen siday u qabanayeen si ka fiican oo ka waxtar badan in loo qabanayo shaqadii. muhiimadda kale uu leeyahay waxaa ka mid ah in beeraleydii maxaa weeyaan ay la kulmayaan ama muhiimadda uu leeyahay beeraleyda qalabka beeraha waxaa weeyaan in waqtigii lasoo koobo oo waqtigii la yareeyo iyadoo laga eegayo ama la fiirinayo maxaa waqtiga shaqada ku baxaysa ama waqtigii markii hore manualka la isticmaalayay ama bini'aadanka ay shaqada qabanayeen waxa ku baxaysa waqti badan ama maalmo shaqo qaadanaysay in lagu soo koobo waqti kooban. shaqadaas marka waqtiga la soo koobayo loolama jeedo in maxaa weeyaan kaliya shaqadii waqtigii la kala jaro ama shaqadii haaf laga qabtee waxaa loola jeedaa in shaqadii iyadoo waxba laga jarin oo sideedin loo qabanayo haddana waqti kooban shaqadii si ka fiican markii manualka loo qabanayo bini'aadamku ku shaqeynayay si ka fiican in shaqadii loo qabto. marka
waxa kaloo ka mid ah muhiimadda uu beeraha u leeyahay waxa uu kordhiyaa wax soo saarkii oo markii shaqadii si fiican loo qabto wax soo saarkiina wuu kordhaya oo hagaagaya. Marka shaqooyin waxaa jira marka waqtigoodii lagu ilaaliyo wax soo saarka kordhiya. Haddii waqtigoodii lagu ilaalin waayo oo waqtiga laga dhimana ama waqtigii uu dheeraadana maxaa waaye sabab u noqonaysa wax soo saarka inuu hoos u dhaco. Waxaa ka mid ah kale abuurkii oo kale abuurkii waqtigiisa haddii lagu abuuri waayo dalagga wax soo saarkiisa ay saameynaysaa. marka hore marka diyaarintii ayaa horeysa diyaarintii in waqtigeeda lagu qabto si abuurkii waqtigiisa uu gaaro oo beerta waqtigeeda lagu qabto. Iyo waxa kaloo ka mid ah weedinka ama cawska oo kale in dalagga laga jaro. Cawsku waxa uu qabtaa waxa uu la wadaagaa nafaqadii iyo biyihii dalagga. Marka mar walba cawsku meesha ku sii yaalo dalaggii nafaqadii biyo waa la qaybsanaya. Sidaa darteed dalaggii wuxuu hoos ayuu u dhacayaa marka haddii marka waqti hore la jaro goor hore laga jaro waqti dalaggii wuxuu helayaa fursad marka uu keligiis nafaqadii biyo ku helo oo uu sidaas ku baxo wax soo saarku ku wanaagsanaado. Waxa kaloo ka mid ah harvestingka ama guritaanka marka la joogo dalagga haddii waqtigii aan la gaarin la guro waxa dhacaysa nafaqadii iyo dalagga wixiisa aysan dhamaystirmin ayaa la gurtay. Sidaa darteed nafaqo quality la'aan ayuu noqonaa dalagga quality-giisa hoos ayuu dhacayaa. Haddii waqtigii laga dib dhacana waxa dhacaysa iyadana in dalaggii uu halaabo oo soo daato mirihii oo kale mirihii uu ku soo dhacaan ay khasaaraan marka idina khasaaro ay kala kulanto. Muhiimadda kale uu leeyahay waxa ka mid ah waxa uu kordhiyaa dhaqaalaha beeraleyda. Beeraleyda waxa weeyaan marka wax soo saar badan oo soo kordho wax soo saar badan oo imaado waxa weeyaan dhaqaale badan ay faa'iidayaan. Wuxuuna yareynayaa khasaarihii ka dhalan lahaa markii la gurto kadib. dalagga markii la gurto shaqada kuma ekaanin kaliya waxaa kala sii dhiman in suuqa la sii geeyo baabuurtii lagu qaadi lahaa si u diyaarsan qudaarta oo kale waa dalagyo aad u nugul oo kale marka baabuurta oo aan u diyaarsanayn ama xiran oo kale oo aan dabayl iyo waxba aan lahayn oo la isku cariirinayo kale haddii lagu qaado waxaa ku dhalanaysa inuu baaba'o ama uu burburo ama waxyeelo ay soo gaarto oo waqti badan uu sii aali waayo marka in maxaa weeyaan khasaari marka mashiinadu beeruhu waxay u suurtagelinaysaa in qalabyadii dalagii lagu soo qaado qalabyo casri ah oo baabuur filinjeer ah oo dalagii ilaalinaya dalagii isagoo kaydsan oo maxaa weeyaan filinjeerkiisa qaboojiyihiisa ku jiro in toos loo soo qaado beertii sidii loo soo gaarsiiyo marka usoo laabano xaaladda dalkeena sidee u aragtaa xaaladda mashiimeynta beeraha Soomaaliyeed heerkay marayaan waqtigan la joogo mashiino ma isticmaalaan beeraleyda hadda la jiro heerka mashiimeynta beeraha horta heer aad u hooseeya ayuu marayaa hadda baaritaan ama daraasad la sameeyey sanadkii 2025 waxa uu tilmaamayaa in oo laga sameeyey 5 magaalo oo magaalooyinka beeraha ku fiican ka mid ah oo Afgooye, Jowhar, Bulaburde, Doolow iyo Luuq oo kale waxay tilmaamaysaa daraasadaas dadkii la wareystay in 92% dadku ay isticmaalaan qalabyadii qadiimiga ah ama awoodda bini'aadamka awoodda xayawaanaadkii inay adeegsadaan oo xayawaanaadku aad u yaryahay laakiin waxa aad u badnaa oo 91% tiro dhan gaaraysay in awooddii bini'aadamka ku xidhnaa qalabyadii gacanta yaambadii iyo qalabyadii la mid ahaa inay adeegsadaan dadku marka waa heer aad u hooseeya marka mashiinadii marka 8% ayay noqonaysaa marka dadka qalabyada adeegsada ama mashiimeynta beeraha adeegsada 8% wax ka yar ayay ku soo aadaysaa marka tiro aad u hooseysa dhinaca kale haddaan fiirino cagafta iyo qalabyadii haddaan kala qaadno cagafta marka la yiraahdo inta badan Soomaalidu waxay u wada yaqaanaan wax dhan shaqada qabanaya cagaftiya beerta fasha cagaftiya qabata leeyahay cagafku waa baabuurka kaliya baabuurka marka shaqadiisa waxa weeyaan asiga inuu qalabkan jiido ama uu ka shaqaysiiyo qalabka marka meeshii markii hore yaambadii bini'aadana qabanaya sama shaqadii oo ka shaqaysiinayay hadda booskeedii ayuu cagafku joogaa marka oo qalabkii inuu qabto oo jiido oo shaqadii uu inuu ka shaqaysiiyo ayuu ka qayb qaataa marka cagafta markaan fiirino FAO oo kale 2019 daraasad ay samaysay waxay ku tilmaamaysaa in Soomaaliya markii cagafyada yaalo loo fiiriyo hektar ahaan dhulka markii loo fiiriyo to kunkii hektar waxa ku soo aadaysa 0.1 tractor ama hadda si kale u eegno 10,000 oo hektar waxa ku soo aadaysa hal tractor waa tiro aad u yar aad u hooseysa inkastoo 2019 waqti badan ka dambeeyay waxyaalo badan qalabyo badan isbedeleen oo qalabyo badan dalka la keenay haddana weli heerkii heer sare weli soo ma gaarin si kale qalabyada kale cagafta lagu xiro haddaan fiirino iyagana
shaqadii cagafka maxaa dhacnay qalabyadan ka shaqaysinay qalabyada marka ayaga waxay kaliin qalab beerta lagu falo kuwa beerta lagu abuuro kuwa beerta lagu buufinayo kuwa dalagga guraayo kuwa markii dalagga la soo guro ka bacdi si finjilayo qalabyo ayaa leedahay kuwaas ama implement English-ka lagu yiraahdaa qalabyadaas marka haddaan fiirino iyagana Soomaaliya markaan fiirino qalabyadaas isticmaalkooda waxay ka isticmaalaan kaliya qalabyada tillage-ka ama carrada lagu falo inta kale qalabyada dalagga lagu abuuro ma lahayo qalabyadii lagu buufinayo ma yaalaan kuwa harvesting-kii oo maxaa weeyaan dalagga lagu guraayo ma lahan kuwa threshing-ka xoogaa meelaha qaar laga helaa oo dalagga marka la soo guro ka bixin finjila ganleyda oo kale sabuul ka saaraysay ayaa la helaa ayadana aad ay u yartaa marka qalabyada la isticmaalo waa kuwa tillage-ka marka carrada fala oo ayagana laga adeegsado kuwan falka kuwa loo isticmaalo carrada gediya oo diskiga iyo omarka ama duamar iyo tray-omarka laga adeegsado iyo qaybta falka labaad oo ayadan arbishka laga leedo carrada burburiya iyo kan solkatoraha la yiraahdo waraabkii u diyaariya ayaga adeegsadaan marka kaliya heerka meesha la joogo waxa marka wali tillage-kii ayaan soo maroonaa wali intii kale wali qalabaan ma hayno marka beeraleyda horta waxay iskugu jiraan beeraley yaryar iyo beeraley waaweyn oo dhaqaale haysto waqtigana waa muhiim mashiinadani waxay yareeyaan waqtiga ku baxo beeraha in oo si manually gacmaha iyo lala galo marka beeraleyda yaryar sidee loo gaarsiin karaa mashiimada in ay beerta u isticmaalaan beeraleyda yaryar waxaa loo gaarsiin karaa horta habab kala duwan midda koowaad waxa weeyaan horta mashiinada markii laga hadlayo ma ahan kaliya kuwa waaweynka cagafta iyo waxyaalaha waaweynka aan naqaano kaliya ma ahan heerar kale leeyihiin kuwa yaryar jira oo iska raqiisa kuwa waaweynka meesha cagaftii 30,000 iyo meelahaas ay ka kacayso iyo qalabyada lagu xiray ayagana lacag kala siila qalabyo yaryar jira oo $100 $400 iyo u dhaxaysa oo qalabkan yaro power tiller ka yiraahdo cagafta yaro gacanta lagu jiido ayaa kamid ah iyadana waxay leedahay marka meelo badan oo qalabyo kala duwan lagu xiri karo kii carrada ku falaya ku xiri karta kii abuuraya ku xiri karta kii buufinaya carrada dalagga guraya ku xiri karta qalabyo kala duwan ayaa ku xiri karta marka oo isla qalabkii yaraa waay marka manualkii gacantii lagu sameeyay shaqo ka fiican ayuu qabanaya inkastoo tractorkii cagaftii weynaa shaqadii dhammaan gaarin haddana waxa weeyaan shaqo ka fiican shaqadii manualka markii gacanta loo adeegsado ka fiican oo ka waxtar badan ayuu qabanaya marka oo uu soo kordhinaya marka waxa kaloo looga faa'iideyn karaa in beeraleydii qalabkii laga kiriyay oo qalabkii iyadoo la fiirinayo beeraleydii awoodda ay leeyihiin ma awoodaan qalabka inay soo kireeyaan inay soo iibsadaan marka sidaa darteed qalabyo ay isticmaali karaan oo ay waxa weeyaan saacado bis kaliya laga kireynayo oo saacadaha shaqadii ay u baahnaayeen loogu qabanayo kadibna ay lacag yar iska bixinayaan ayaa loo isticmaali karaa waxa kaloo looga faa'iideyn karaa in cooperatives ay sameystaan ama iskaashatooyin oo beeraleyda ay isku tagaan oo ay shaqadii marka qalabyadii lacag ay isku darsadaan oo qalab ay isla iibsadaan kadib qalabkaas marka ay kala qaybsadaan oo qofba mar ay maalin ama saacado shaqada lagu qabanayo saacado qof ay qaadato ay shaqadii kusoo qabsato marka ayaa looga faa'iideyn karaa waxa kaloo looga faa'iideyn karaa in tababaro loo sameeyo beeraleyda haddii xataa ay isku qasbi lahaayeen ama inay share gareystaan oo cooperatives ay sameystaan ama ay kiradii aadaan xataa waxaa laga yaabaa in ay qalabkii fahansaneenba dadka qaar qalabka muhiimadda uu leeyahay iyo faa'iidadu beerta u hayo ma fahansana marka in tababaro loo sameeyo beeraleydii si ay beeraleydii u fahmaan oo haddii xataa ay lacag helin ay maalgelina iyo raadsan karaan marka iyo maalgelin loo sameeyo oo la maalgeliyo caalamka ma jirto beeraleyda yaryar istaageerta keligood isku filan waxaa loo sameeyaa maalgelino dowladda kale maxaa jirto budget u gooyeyso oo beeraleyda yaryar lagu caawiyo marka in maalgelin loo sameeyo kaliya dowladda ma bangiyada oo kale inay maalgelina beeraleyda u bixiyaan xataa haddii aysan maalgelinta iyo deymankii marka la qaadanayo waxaa la jirto shuruudiyooyin la maraayo shuruudaha haddii laga soo bixi waayo xataa in share ay samaystaan oo beeraleyda share la galaan oo ay lacagtii faa'iidadii ka soo baxday ay hadhowtii ayaga wada qaybsadaan marka oo ayagana way faa'iideen beeraleydiina waa faa'iideen wax soo saar ay yeesheen marka waxyaalahaas ayaa loo faa'iideyn karaa marka dalkeenu ku dabaqno caqabadaha ka hortaagan maxay tahay in beeraleyda ay beerahooda mashiimo ku xirtaan mashiimooyin isticmaalaan dhibaatooyinka ugu waaweyn oo kala kulmaanna maxay tahay bulshada
صح horta caqabadaha haysta beeraleyda si qalabkii ay u gataan horta aad u fara badan yahay marka koowaad waxaa horta qalabyadu waa qaali qalabyadu waxa qaali ka dhigayo waxa weeyaan anaka ba soo saarano qalab wadamada qalabyada soo saaro dadkoodu kuma dhibtoodaan qalabka anaka waxay nagu soo gaartaa gacan saddexaad gacan afraad wadankii soo saaray qofka ka sii qaadaysa qof kale ka sii qaadaysa waxaa laga yaabaa gacanta afraad ama gacanta shanaad in nagu soo gaarto mid walbana waxaa u saarnaa faa'iido iyo wadan kaloo la geeyey canshuur dheeraad ay sii saarto marka waxay noqonaysaa marka waxay kugu soo gaaraysaa qarash qaali ah ama qiimo qaali ah ayuu kugu soo gaaraysaa marka waxa kale oo caqabadaha kamid ah beeraleyda oo iska ah dad danyar ah oo dad waxa weeyaan beerihii cunto quduuriga kaliya waxay ku noolaadaan ayay u abuurtaan oo maadaama qalabyadii iyo waxyaalaha casriga ahaa oo wax soo saarkii kordhinayay ganacsiga gaarsiinayay aan haysanin dadkii beeraleyda marka oo iska yar tabartooda iska yar tahay iyadana caqabadaha ay kamid tahay waxaa kaloo kamid ah caqabadaha jira in maalgelin la-aan ay jirto iyadana oo ay bangiyada ha noqdaan dadka ganacsatada lacagta leh ha noqdaan dowladdii ha noqdaan maalgelin beeraleyda loo sameeyo oo beeraleydii qalabkii iyo wixii beerihii lagu maalgeliyo aysan jirin iyada caqabadaha waxaa kaloo kamid ah in aqoontii beeraleyda ay liidato baaritaanka daraasadii la sameeyay 2025 waxay tilmaamaysaa markii la wareystay beeraleyda aqoontooda meesha ay joogto 93% beeraleydii boqolkiiba 73 beeraleyda waxay tilmaameen in aqoontoodu ay maxaa weeyaan ay illiterate ay tahay yacni ayna wax akhri aqaanin waxna ayna qori aqaanin inta kale ee soo hartay iyagana inta soo qaadatay tababar xirfadaysan ama aqoon xirfad ah oo qalabkii waditaankiisa noqoto qalabkii habeentiisa noqoto iyagana aad ay u leedatay ama aad ay u yar tahay marka hore caqabadaas ayaa kamid ah marka dadkii aqoontoodii asaasigeed inay liidato oo dadka ayna fahansaneenba waxaan akhriskii aad ka weliitaan haddana inta taqaanana oo inta asaaskoodu dhisan yahana xirfadii ay ka maqan tahay iyadana oo hadda magaalooyinka beeraha markii la tago kale dadka cagafta wadi yaqaana ama cagafta fahmi kara oo haddii halawda xataa samayn kara aad u tirsamaan waa la yaqaanaa hebel la dhihi karo waay aad u yar waa oo magaalo weyn waxaa laga yaabaa ama magaalooyin dhanba in laga helinba qof oo taqaano ama makaanig ah oo magaalooyin fog ama dalka dibadiisa laga raadinayo marka caqabadaha waxaa kaloo kamid ah spare partiyada oo aad u yarayda spare partiska dalka qalabka spare partigiisu dalka inta badan ma yaalaan ama haday dalka yaalaana waxa weeyaan aad looma isticmaalo oo aad waxa weeyaan isticmaalkooda ma badno sida hal shirkadood ama dad yar ahaaya sida qaali ay ku soo gaaraysaa beeraleyda marka idina caqabad waayo qofkii hadii uu ka halaabo qofkii sameyn lahaa inay raadiso oo waxa weeyaan lacag badan ku bixiso spare partigii lacag badan ku bixiso ay noqonaysaa marka ayadana marka qofkii markii laba mar saddex mar uu ka halaabo in ay u dhiiran weyso oo ay mar laba ay u noqon weyso tan kale ayadana caqabada jirta waxaa kamid ah qalabyada yaala hadda marka Soomaaliya si guud loo fiiriyo inkastoo ay jiraan shirkado cusub oo hadda qalabyo casri keena hadda qalabyo hore oo duug ah ayaa yaala inta badan qalabyadaas duuga ah marka oo gacan labaad ku soo gaar beeraleydu waxay ku doortaan qalabyadaas gacanta labaad ku soo gaaraya in lacagta maxaa weeyaan lacagtooda ay yar tahay spare parts in la heli karo oo shirkadda Fiat ayaa kamid ah shirkadda Fiat hadda ma jirto mar hore baabaaday laakiin qalabyadeedii 70-80 la keenay dalka ayaa yaala sida darteed maadaama muddo la soo isticmaalayay meel walba magaalooyinka waa laga helaa spare partigooda marka intuu dooro lahaa hal shirkad oo spare partigiisu ay hal meel taalo wuxuu ka doorbidayaa magaaladiisa spare parts uu ka heli karo marka sida qalabkan fiican ma fiirinayo qalabkan waxtarkiisa iyo ma fiirinayo wuxuu fiirinayaa qalabka helitaankiisa iyo hadduu halaabo sida uu heli karo marka qalabka gacan laba ku soo gaaray oo waxa weeyaan la soo mar hore shirkadiisa baabada hadda aan la soo saarino mar labaad gacan labaad taa la soo haabiyay loo keenay asigoo og ayuu ku gadanay kaliya lacag yar uu ku gadanayo haddana qarash lacag yar uu ku heli karo $5 oo kale uu ku heli karo spare partigiisa iyo saameyntiisa markii mashiimada la isticmaalo waxaa ognahay inay wax soo saarka ay kordhiso dhinaca kalena markii loo fiiriyo waxaa laga yaabaa dad badan oo shaqeynaya in oo shaqo la'aan ay ku dhacdo oo mar walba mashiin oo meesha soo galo inuu qof uun meesha ka siito meeshii goobtii laga shaqeynayo marka mashiinada qaar sida kuwa waxyaabaha abuuro kale kuwa tillage ka sameeyo oo carada gedgediyo qof un baa samey jiray
marka sidee maxaa la lahaa shaqo la-aantaas iyo dhibaatadaas dhaqaale la-aan soo ma keeni karto? horta sax waayo mar walba oo teknolojiyada iyo qalabyada casriga la gaaro waxa weeyaan shaqadii bini aadamka waa laga weecanaya shaqada qalabkii ayaa qabanaya oo shaqooyinkan qalabkan loo keenayo dadaa qaban jira marka hore laakiin kama dhigna dadka shaqa la-aan ku dhacaysa sax waayo qalabkii shaqooyinkii dhan qalabaa la wareegay laakiin dadka shaqa la-aan kuma dhacaysa oo qalabkan imaanayo keliis ma shaqeeyo asiga wuxuu u baahan yahay qof wada wuxuu u baahan yahay spare parts oo hadduu halaabo samayntiisii dad iibiya oo spare parts-gii haya wuxuu u baahan yahay shidaal meel lagu iibiyo oo dad shidaalka iibiya loo baahnanaya waxaa loo baahnaya hadduu halaabo qof samayn karta maxaa weeye iyadan makaanigii ayaa loo baahnanaya wixii uu soo saaro beerta kasoo waxaa loo baahnanaya suuqgeyn in maadaama wax badan uu soo saarayo suuqii uu ballaaran doono maxaa weeye meelo fog inuu suuqi ay gaarto ay laga yaabo marka dad fara badan waxaa loo baahnanaya marka ilaa suuqeyntii geyso ka qayb qaadata suuqyadii fog gaarsiiya markii wax soo saarku uu kordho oo uu hagaago oo waxa weeye dalka dhan wax soo saarkiisa uu fiicnaado waxaa imaanaysa idan baahi kale ah dalagan inta marka baahidii uu ka badato baahidii intii dhammaystiranto maxaa imaanaysa in la sii kaydsado soo warshadeyn oo kale in qaabka la sii warshadeeyo warshadihii wuxuu u baahan yahay iyagan shaqaale oo dadkii marka beeraha qabanayay warshadihii kale ka shaqeynayaan marka shaqa la-aan kuma dhacaysa dadkii marka hore ay qabanayeen waxay shaqo xoogoodii ku shaqeynayeen hadda waxay u gudbi doonaan shaqo xirfad ah meeshii marka hore ay xoogooda ku shaqeynayeen hadda xirfad aqoon ay u gudbayaan qalabka wadid aqoon ay u baahan tahay spare parts iibintii qalabkii suuqgeyntiisii warshadihii ka shaqeyntooda kulligood waxay u baahan yihiin aqoon ay u baahan yihiin marka waxay u gudbayaan xooggii ayay ka gudbayaan shaqo xoog leh oo xooggii lagu qabanaya ka gudbayaan shaqo xirfad leh oo aqoon ku dhisan oo joogto ahna marka hore waxay ahayd xilliga wax la abuuranayo bisa la shaqeyn jiray xilliga guga oo kale abuurka la gaaro ayay dadku soo shaqo gali digeen xilliga xagaaga oo kale markii dalag la gurto kadib waa dadka shaqo la-aan ay ahaa jireen haddana deyrtii markii gurashada la gaaray abuurka kale la gaaray soo shaqo gali jiray markii dalag la gurto haddana waa shaqo la-aan ku dhacaysa laakiin hadda shaqo joogto ah imaan doonto oo shaqadii ma joogsanayso warshadeyntii toos shaqo waxaa weeyaan shaqooyin kale la qabanayay waxaa weeyaan horumarkii uu sii soconaya marka shaqo joogto ah oo xirfad ah ayay helayaan marka oo shaqadan kuma dhacaysa su-aashan waxay daba socotaa tii hore waxaa dhahday dadka waa inay collaboration sameeyaan oo inay isku tagaan qalab ay ka gataan dadka inkastoo beeraleyda ay yihiin hal family oo wax isku darsan haddana dad sidee loo dhex dhigi karaa trust oo dhexdooda amni iyo maxaa la lahaa isku kalsoonaan loo dhex dhigi karaa si ay wax u qabsadaan horta tan ugu badan baahida ugu badan laga qabo oo aadna loogu baahan yahay waa taas maxaa weeyaan dadkii horta isma fahmayaan maxaa weeyaan wax yar dadka inta badan waxa qoys isku xidhan yahay qoyska kale inay isfahmi waayaan laga yaaba marka way jirtaa caqabadaas laakiin waxaa muhiim ah in laga fikiro waxa la faa'iidi doono waxa soo bixi doona keliya aan fiirin hebela aan la dagaashanahay hebelka la dagaashanayo darab laakiin adiga faa'iidada aad ka faa'iidaysid iyo waxa aad helaysid inaad fiirisid marka oo qalabka marka isla gadataan adiga hebel adna maalintiisu isticmaal adna maalintaada isticmaal doonta iskuma imaanaysaan marka haddii kale waxyaalaha la iskula qaybsanayo kale waxay lagu yaqaan soomaalida mida iskaga dhigaya wuxuu leeyahay anaa qabsanaya anaa maalintaan haysto asagoo shaqo ku qabsanay ayuu meel iska dhiganaya marka taas in lagu gudbo oo loo fikiro qaab maxaa weeyaan horumar ah in horumar qof walba horumar inay gaarto oo aad ka fikirto marka saa adiga uga fikiraysid ninkaasna intiisa uga fikirto oo adiga kaadaan iskaga dhignaanin marka loo baahan ugu dambeyn ustaad waa mahadsan tahay adigoo mahadsan maxaa talooyin ah oo u jeedi lahayd beeraleyda Soomaaliyeed talooyinka horta aan u jeedinayo marka hore waxa weeyaan horta in beeraleydii ay qalabyadii ay fahmaan qalabyada isticmaalkooda ay badiyaan oo maxay xilligan hadda la joogo oo waxaa soo kordhay waxyaalo badan oo waxaa ka mid ah kelimad jaanjiga cimiladii isbedelay dhulkii wuu isbedelay maxaa xilliyadii hore waxaa laga yaabaa gacanta waxyaalaha lagu soo saaro in iskaga filna dadka laakiin hadda kuma filna waxa gacan lagu soo saaray reerkaas soo saarta hataa baahidooda ma dhammaystiraysa mararka qaar oo wixii ay soo saareen waxaa arkaysa maba suuq geeyaan wixii ay u baahnaayeen hataa inay kasoo gaada waayeen marka qalabyadii in la fahmo qalabyada markii hore manualka markii laga soo gudbay horay cagaf iyo qalabyada casriga waaweynka lagama gaari horumar leefala la soo maray
oo qalabyada yaryar laga soo bilaabay kabacdi waa la sii hormaray ilaa meesha ugu sareysa hadda la joogayo marka haddaan dhahno marka meeshaan joognaa horay ayaan qalabyada waaweynka ka gaaraynaa waxay noqonaysaa inaan maxaa weeyaan aan guri jaranjartiisa intaan ka boodno meesha kor aan korin aan dhahnay marka oo baahidaynu ma gaarsiisno xaggaas yacni kow marka hore inaan awoodaynu ma gaarsiisno inaan horay qalabyada casriga aan kaga gaadano marka hore kuwa aan gadan karno inaan soo gadano kabacdi horumarka wax soo saarkii aan yara kordhino marka wax soo saarka aan kordhino haddana xoogaa kale ku darno kabacdi meesha ugu sareysa aan gaarno marka qalabyada ugu casrisan aan gaarno marka beeraleyda waxaa mar walba aan kula talinaya marka inay qalabyada marka ay fahmaan qalabyada si u kala hormareen si u kala muhiimsan yihiin shaqada la qabanayo inay aad u fahmaan aqoonta tababarada iyo in la badiyo oo maxaa weeyaan dadka ku shaqada leh ama maxaa weeyaan inay TVET-ka barnaamijka la yiraahdo tababarka xirfadaha in la kordhiyo oo magaalo walba laga sameeyo dadkii beeraleyda xirfad lagu tababaro oo dadkii la barto sidii wax u abuuri lahayn qalabyadiisii uga shaqay lahaayeen sidii u fahmi lahaayeen cagaftii iyo wixii in la fahansiiyo beeraleyda oo wax soo saarkii la kordhiyo marka haddii laakiin weli meeshayna aan joogno oo weli gacanta aan ku sameyno qalabyadii naguma filnaanayaan dalagaa soo saarnay baahidii dadka ma dhammaystiran maxaa imaanaysa marka in dalagyo dibadda laga keeno oo hadda aan la kulanno dalagyadii dalkeena caanka ku ahaa cambihii mooskii ayaa wax arkaysa dibadda laga keenay maxaa waaye baahidii dadka dhammaystirmi weyse ama kuwii la keenay ayaa tayadoodu liidata oo maxaa weeyaan wadooyin xumaa jira wadooyinku way hooseeyaan aad u xun yihiin caqabadaha jira kamid ah naftigeeda wadooyinka aad u xun yihiin oo wado burbursan wadada aad u burbursan tahay roobda oo kale dalagyada ma soo gali karaan dalka magaalada muqdisho kale abgooyi barcada ku xidhanna markuu roob da'o maxaa weeyaan waa dalagyadii way yaraadaan oo maxaa weeyaan dalka soo galaya aad u yar maxaa weeyaan wadooyinkii dhiiqa noqdeen waa la soo mari waay wadooyinka qaar aad u yeerihiin maxaa laga yaabaa marka inay cagafyadii waaweynka ahayd oo maxaa weeyaan inay u diyaarsaneen oo ay mari kareen marka maxaa weeyaan iyadana in ayada laga fikirayo marka taas la fiirinayo maxaa weeyaan caqabadahaas jira wadooyinkii loo hagaajiyo wadooyinkii la fiicneeyo oo wadooyin waaweyn qalabyo waaweyn mari karaan laga dhigo wadooyinka dhiiqada ah la hagaajiyo maxaa weeyaan interlogyo ama maxaa weeyaan laamiyo la saaro si ay uga fududaato marka dalagii in si fudud lagu keeni karo magaalada ku muuqato 30 kilomitir ku jirta dalag laga keeno in dalag laga keeno wadan ka fog oo ka tayo fiicnaado waa wax lagu xumiya marka sababta uu tayo fiicnaadana waxa weeyaan kaliya qaabkii loo soo qaaday ama qaabkii loo soo xanaaniyay midkan caaga la iskaga soo shubay baawur aan u diyaarsaneyn oo cariiriha la iskaga soo buuxshay markii la keenay waxa laga yaabaa inay boqolkiiba 30 ay halowday oo inta kalena waxa laga yaabaa ay maanta haduu yaalo galabta waa arkeen suuqa daamarno waxa yaanyo iyo la daadshay oo suuqa yaalo waa arkeen qiimihiin kor u kacaya marka maxaa weeyaan hal mar beeraleyda hal mar isla soo galinayaan oo qiimaha dhan hal mar hoos galaya marna waa la weynaya hal mar kor u kacaya maxaa keenaysa taas wixii hal mar hal soo korto ma xuma laakiin in keed la dhigto qayb markii suuq intii la isla wada keen la in qayb la keensado wixii meelihii lagu keensana ma la haysto marka filinjeeradii lagu talagalay qudaarta lagu keen lahaa ma yaalaan marka in meelahaas xoog la saaro oo kaliya beertiina aan ahayn dalagga marka la soo gurto iyadana waa muhiim kaliya dalagga marka la soo gurto dalagga xanaanayntiisii macawaayin hayntiisii kaydintii wixii dhan waa muhiim in ayadana maalgelintii xagaas lagu sameeyo oo dalagga markii la soo wada guro dadka dhan beeraleyda hal mar soo gurtaan oo anaga laba xilli waxa abuuranaa labada xilli marka dadka dhan halkaas waxa abuuranaa marka in hal dal isku meel la wada abuurto waa normal laakiin halka dalagga la wada keeno suuq in wada imaanin ayaa muhiim oo kayd oo galo maxaa yeelay bil ka bacdi waxa arkaysaa dalaggii maalin hore la iska daadinayo oo maxaa weeyaan suuq magaalada iska wada kasta la iskaga tuurayay maalin dambe qaali ah oo la weysan sababta waxa weeyaan dalaggii maalintii hal mar la wada keeno suuqii ka bacdi ma lahan marka suuq marka waxa oo iibsada waa la iska wada daadshay ka bacdi xilliga dambena waxay noqotay dalag la'aan inay imaato oo dalagii la waay marka kayd ayaa muhiim ah marka in loo sameeyo meel lagu kaydiyo oo dalagii lagu xanaano ka bacdi markii xilliga bil ka bacdi markii dalagii uu go'o in hadan dib loo sameeyo marka suuqii wuxuu noqonayaa marka mid isku dheelitiran oo marna aan hawada gelin marna aan hoos u dhicin oo si dheelitiran u socdo marka marka laga soo tago beeraleyda ardayda wax baratay oo jaamacadaha beeraha Soomaaliya beeraha jaamacadaha ugu soo baxay
suuq ma ugu bannaan yahay dhinaca mashiimeynta iyo maxaa la dhahaa beeraha? si fiican suuq weyna uga banaan iyaga waxay ay isku hayaan mid horta cilmigii haddii ay marka cilmigii ay kusii daraan shaqo ama xirfad ay kusii daraan cagafyadii wadowgoodii oo kale oo dadka maxaa weeye ninka beeraleyda ah intii maxaa weeyaan in la fahansiiyo oo maxaa weeyaan mashiinkii maxaa laga yaabaa qorowgii inuuna aqaanin midka laakiin qoraaga waa taqaanaa cilmiga waa taqaanaa qalabkii waa taqaanaa keliya inaad wadowgii iyo wixii tababar yaroo lagu sameeyo ayaa ku horgeli kartaa marka howl weyna uga banaan oo waxa weeyaan mid cagafyadii ku shaqayntoodii tababarkoodii waa uga banaan tahay mid badan waxa weeyaan beeraleydii in extension ay u sameyn karaan fidin inay gaarsiin karaan oo beeraleyda fog oo aanan qalabka ka warqabin qalabka faa'iidadiisa aan aqaanin in beeraleyda ay gaarsiin karaan marka oo ay maxaa weeyaan la wadaagi karaan beeraleyda oo ayaga xataa ay gacantooda ku tusin karaan oo ay ku shaqay karaan oo markay lagu shaqeeyo la arko beertii oo qalab lagu sameeyey oo wax fiican soo saartay nin haddaa loo arkada beeraleyda anaka maxaa weeyaan waxay wax ku aragtiya wax lagu fahmaa sooma markii aan ku sheego anigu qalabkan faa'iidana uu leeyahay taasuu leeyahay kaasuu leeyahay aan ku dhaho iyo markaan intaan ku shaqeeyo aan ku tusiyo beertii meesha adiga aad hal baawur ka radis aniga 10 baawur aan ka raro markaas waxaa leedahay kana fiican kana usoo wareega marka in xirfadii gacanta lagu tusiyo beeraleyda magaalada aan iska joogino beerihii loo tago oo beerihii lagu ag shaqeeyo dadkii lala shaqeeyo ayaan kula talinahay ardayda beeraha marka shaqo weyn uga taal meesha. shaqo weyn u banaan shaqo weyn aad uga banaan haddaan ka Soomaaliya marka joogno kale aad baahi weyn ayaa ka jirta dhinacaas oo aad uga banaan tahay. daawadayaal halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena waxaa maanta martiino ugu ahaa Ustaad Cabdiwahaab oo ah baar sare wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha gobolka Banaadir kuna takhasusay cilmiga mashiimeynta beeraha. waxaan idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Faarax Cumar tan iyo inta aan ku kulmi doono tasho iyo tacbo.